digniin culus ayaa loo diray dadka isticmaala taleefanada iPhone-ka iyadoo looga digayo in tuugadu ay suurtagal ay tahay in ay si fudud ay ku xakameeyaan. Shirkadda Apple ayaa soo saartay hab cusub oo ay ku hagaajinayso ciladaha amniga ee aaladaha iPhone, iPad iyo Mac, kuwaasi oo ay sheegtay in laga yaabo in tuugadu ay si fudud ay uga faa'iideystaan. Mas-uuliyiinta shirkaddan tiknoolajiyadda ayaa warka ay soo saareen ku sheegay in software-ka cusub uu sameynayo cusboonaysiinta amniga oo muhiima, waxaana lagula talinayaa dhammaan macaamiisha inay ku dhaqaaqaan cusboonaysiintaasi. Cilada ayaa u ogolaan karta tuugada inay si buuxda u xakameeyaan qalabka. Khubarada soo saarayaasha ah ayaa soo jeediyay cusboonaysiintiisa, waxaana loo diyaariyey iPhone 6s iyo kadib iPad Pro, iPad Air 2 iyo kadib iyo iPad Gen 5 iyo kadib. waxaa kale oo diyaar u ah iPad Mini 4 iyo noocyo dambe oo ay soo saartay. Isticmaalayaasha Mac oo ku shaqeeya Mac OS Military ayaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa in ay cusboonaysiiyaan aaladahoodii. Ilaa hadda ma jiraan warar la xaqiijiyay oo sheegaya kiisas gaar ah oo ciladaha amniga loo adeegsaday dadka ama aaladaha. Cusboonaysiinta software-ka waa maalin kasta, laakiin tani waa hal cusboonaysiin oo aan la isku indhatiri karin maadaama ay digniin culus ay la socoto. Dunida ayaa si sax ah uga walaacsan amniga internetka iyo awoodda ay isticmaali karaan burcadda internetka haddii ay bartilmaameysadaan qalab u nugul weerarkoodii. Inta badan isticmaalayaasha ma jirto wax ay ka argagaxaan maadaama aysan jirin wax soo jeedino ah oo sheegaya in la jabsaday taleefanadoodii. Sidoo kale waa in la sheegaa in qayladhaanta ka soo yeeraysa baraha bulshada ee ku saabsan cusboonaysiinta amniga ay suurtagal ay tahay in laga dhigo xad-dhaafa. Apple ayaa soo saartay cusboonaysiinta amniga degdeg ah ee la midka ah sanadka oo dhan oo ay ugu dambeysay bishii Maarso, iyadoo aan wax badan laga argagaxin. Software-ka ka shaqaysiya taleefanada gacanta, kombiyuutarada iyo aaladaha kale ee shirkadda Apple ayaa si joogto ah loo cusboonaysiinayaa, taas oo ay ku xiran tahay arrimo kala duwan. Mararka qaar waxaa looga hortagaa halis isticmaalayaasha uga imaan karta bogagga iyo barnaamijyada moobilka qaar. Markaasi waxaa la difaacayaa xogta gaarka ah ee macaamiisha. Mararka kalena waxaa looga jawaabayaa xog ku saabsan in isticmaalayaasha qaar ay ku dhiban yihiin culays ka qabsada waxyaabaha qaar. Mararkaasi waxaa lagu xaliyaa dhibaato soo korortay, taas oo ay jirto. Haddana waxaa dhowr jeer oo hore lagu dhaliilay shirkadda in ay si ula kac ah ay u curyaaminayso aaladeedii gabowday si ay macaamiisheeda ay u iibsadaan kuwo kale oo cusub.